أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa walaalkayga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalid dibad waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka qaaliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkayga daawanaysaan ama iga dhageysanaysaan waa Khadiija Aadam Official channelku waa channelkiina ku soo dhawaada gacmo furan qalbi nadiif ku soo dhawaada walaalay salaanta kadib iyo soo dhaweynka bacdi qisaa noo socotay insha Allah qisadaas baan wadayaa haddii alla yiraahdo rabbi raalli ka noqdo waxay noo mareysay horta waa qaybteedii saddexaad waxay noo mareysay anigoo intaan burka xasha haddana mar labaad xashaaya iska haddana soo dubaaya haddana yacni wixii oo kala qalalay saasa lagu cuni jiray ilaahay idinkuma rido insha Allah anigana Allah iga badbaadiyey alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan mahad iyo shukri Allah iska leh markasta u mahad celinayaa markaas kadib haddii dadkii dariska la noolaa aan la deganaa xataa yani dabeecad la-aan dabeecaddiida ma ani saas oo malin jiray dabeecad xume dabeecad fiican ma ahan waa iska xanaaqsanahay sankan baan taagayaa yaa ma garateen qof iska xanaaqsanaanahay qof iska xanaaqsan xaajiga lama noolaan karo waxaan isleeyahay waxaan cadow in isku yahay umaleeyaa cadow ninkii ragga iyo dumarka isqabo cadow inay isku yihiin umaleyn jiro wallah si cadow laskuma ahane waa dad ilaahay mawadatu waraxma dhex dhigay laakiin aniga xanuunsan oo is ogeyn xanaaq marka horta intaan waa marka yaa watana hurdada badnaayo waa iska saaxanayaa telefoon agtiisa hadduu kusoo qayliyay waxaa u malaysaa albaabka iga furay leedhahay oo kale oo ordaya gabsaarkii kama tegaayay iyagoo markaas waxaan xiranaya kama tegaayay laakiin waa ordaya albaabka koraan aadaya soo furaya marka albaabka furo aan fahmaya inaan yani albaab la iga fur leedhihin oo telefoonka la ii soo diray markaas kadib aan telefoonka qabanaya binaanka markaan tagaan aqliysta yani albaabka aan furo binaanka arka oo aqligiisoo noqonaa aqligii ilaahay inma tagsiiye marna binaanka kuma ordayo waxaan ku ordaa balakoonka maaragtay balakoonka meesha oo guriga balakoon waa kulley Soomaalidu balakoon way taqaanaaye saan rajeynayo balakoonka waa fahmaysaan balakoon waxaa la dhahaa guriga meel dharka lagu warto laakiin meeshaan haddaan degannahay biraa lagu sameeyaa dadka qaarna kuma samaystaan hadda Nairobi oo kaleeto biro uma badno waa iska furan yahay meesha waa laga dhici karaa laakiin waa orda waa haddaan sariirta ka soo kaco telefoon soo qayliyo waan ordi balakoonkan ku ordayaa hadday biraha siyaali lahayn ay ku samaysnaan lahayn waxaa isdhawaad ka dhici lahayd ilaahay iiban qadarin iyo waxaa kaloo jira xanaaq waa iska xanaaqsanahay dadka qaar horta waa necbahay yaa waa necbahay marka haddaan sii fiiriyey dadka aan necbaa dadka qur-aanka aqriyo waayo ilaa wax qur-aan aqriyo dhan meesha lagama rabo soo maa yaa marka xaajiga hadduu hal hadal hadduu yidhaho waan sarifa waan badina waxaan leeyahay saasa ka wada waan bedela warka saanad ka wada soo maaha saasa ka wada warkii sidoo asaga ka wada maahan si kaleetan u dhigaa waa iska samraa wadhaha mugtaa iska samraa kulley anigaa dadka midhaa dad baa soo dhibi jiray waan iska samraa markuu dhahan lay raalli ahow haddana meeshii baan ka bilaabaa ma adiga raalli maa dhammaanay raalli ahoonba haddii sabarka la sheega sabarka ii daran yani sabarkaan ka xumaanaa marka waxaa igu qufula ninkaan iska fur haddana markuu iga taga xoogaa yani aqli iisoo noqon waxaan leeyahay maxaa ninkan ku gelaysaa maxaa kula dagaalaysaa waxaan u aqliyeynayaa oo qisadaan u soo deynayaa dhalinyarada
dadkan way aragga noqonin hadday xaasaskooda saas ka noqdaan inay qur-aanka isaaraan ay qur-aanka kula tacaalaan ayaa rabaa. markuu imaado dagaalka meeshuu ka bilaabana qof la soo dhaweynayo yani sabar buu ku joogay maasha allah, ilaahay ha barakeeyo. sabar buu ku igu waday, sabar buu igu waday aniga marka waxaa waaye yani xanuunkaas markuu jiray waxaa waaye calooshan way sii weynaanaysay. isbitaalaan tegay, isbitaalka waxaa la yidhi uur waaye. marka irbadihii oo ay gabdhaha uurka ama islaamaha uurka qaadan jireen waan soo qaatay, kaniinkii la laqsiinaya waan soo laqay, kaarkii uurka waa wataa. marka xanuunkaas markii aan saas markaan ahayna yani saas calooshaasa la sii jirtay, iyo waxaa igu kacsan gaas. waxaas gaas lama dhihi kare, waxaa igu kacsan dabba igaga shidan meesha dhuunta hoosteeda oonba damayninba. lugu xanuun, dhabar xanuun, gaas kaasoon damaynin. wax kasta ku shub, wax damaya ma leh. marka dagaalkiina saas u socdaa, xanuunkii dhinaca iga hayayna saas weli usii badanaa, kufitaankiina wuu jiraa weli. maalinta dambe saan isbitaalka ade klinigan la aadaya oo yani ballanteed ku tegaysa soomaa. maalinta dambe calooshii waxoogaa yar way yaraatay, sidii zaidka u weyneed ma ahan. calooshii waa laga dhex dhaqaaqaya, waxbaa ku dhex jiro. maalinta dambe waa si loo dhadhegeysanaya ilmihii, waxaa lay meesha ilmo kuma jiraan. islaan dhanoo ciyaala sugaysay, cunug sugaysay oo la dhahay kolley iska dareemi kartiin waxay meesha yani jabka ka imaanayo. aniga horta saan yani aad adeeg baa noqday oo waxaa sidii derbi camal u adkaada aniga dhan, jilif mugdi wejigayga. waxaa umaleysaa hadda tv ima yaala, laakiin tv la damiya u ekaaday. waxaa tv la dami bay u ekaan jirtee. marka dadka yani markaas i garanaya, marka saas baan u ekaaday. markaasaa wejigayga maba la fahmi kara, waxoogay qof daayarbaa mase waa waayeel maba la garanayo. tv la damiya, idinka tv yaasha damiya howdhan markaa codkayga dhegeysataan, qisada markaad dhegeysataan tv-ga damiya. markaad damisaanna arka insha allah inuu madow yahay in kale, saasaad igu fahmaysaan. marka asxaabe walaalahayga soomaaliyeed oo aadaan baa dhacaya, marka waan joojiyey. aadaan maqrib waaye, maasha allah ilaahay baana gaarsiiyey. marka waxay ahayd sheekadaas, waxay ahayd waa qiso xanuun bay ahayd, qiso xanuun badan. marka waxaa waaye waa qisadii hore waxaa ku jirta inaan cuntada cunaayay. markaas qisadan hadda yani sheekada cuntadii waan ka go-ay. marka dambe haddaan subaxii quraacdo gaajo mabay qabanayso, maba dareemaya wax baahi ah. haddana anigoon baahnayn baa iska cunaa, ma ahane wax baahi ah. baahidii waa iga guurtay markaan. aniga dhanba adeeg, madow, jilaf, yani dabeecad xumi. dadka aan la deganahay dabaqa ama xaafadda aan la deganahay waxay dhahayeen gabdha, waxay dhahayeen soo bax meesha qudaarta noo raac, asaba xili aad isku kula hadashide. dadkii maxaa lala hadlaa? kuwii la socdin waa la dagaalaa, kuwii xagga aan u tagnin waa la dagaalaa. qof dabeecad yani qofkii way ii malaynayaan, hay taabanin, sa ha idhihin, hay soo fiirin. dadkii ama la dagaalaaba aan u tagnay oo qudaarta laga soo gadan rabay, meel oo suuqa weyn waaye qudaarta laga doonto. marka dadkii aan waxay u malayn walaalahay maasha allah, gabdhahan waxay u malaynaya qofkii
dadka ugu turjubaanaya ay malaynaya mugtihi. marka saasaan soo maray alxamdulilah, laakiin weli qisadii manoo dhammaanin. hadda 10 daqiiqo waa gaartay, ka badan haddaan ka dhiga ummadda yacni waa idinku cuslaanaysaa. in baashi waxaa la rabaa dhaqsi idinka dhammaataa fiican daawashada. qiso dheer ma fiicno, wixii la daawanaya inay soo koobnaadaana fiican. marka xaajigina nafta u keenay, laakiin qof qof iska toosan oo iska waaya arag u ahaa maasha allah. laakiin dib baad ka maqli doontaan oo yacni meeshii arrinta ku dhammaatay iyo sidii looga baxay iyo sidii lagu badbaaday dib baad ka ogaanaysaan insha allah. marka waxaan la dardaarmayaa dadka dhalinyarada ah, gabar iyo wiilba, qofkii idinka xanuunsado oo sidaas ku dhacda in qur-aanka lagula tacaalo. marka akhyaaray meeshaasaan kusoo gabagabeynayaa. kheyra idin rajeynaya insha allah. waa maqrib wanaagsan aydan leeyahay, intii maqrib u tahay, inti xilli kasta idin tahay idin wanaagsanaato. kule ani maqrib bay ii tahay insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.